Bismillahirrahmanirrahiim kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka ah isimada maamulka Puntland oo war ka soo saaray xiisada ka taagan magaalada Boosaaso iyo xukuumadda Dani oo ku tilmaantay mid hareer marsan ee sharciga Puntland dowladda Mareykanka oo madaxda Soomaalida u qabatay 25 cisho kadib sheegtay haddii doorashada lagu soo gabagabay waa inay qaadi doonaan tilaabooyin xasaasi ah dowladda Kenya oo shidaal qudus ka bilowday dhulbadeedkii loo xukumiyay Soomaaliya sababtu maxay tahay halkan ayaa idin kula wadaagi doona iyo in ka badan 100 dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka Liibiya ugu xirneed tahriib oo maanta dalka dib lagu soo celiyay qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahineynaa tabinteena maalinimo u diyaar garooba daawadayaal markale kulan wacan oo wanaagsan waa 12 January sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo aynu guda galno haddii aynu ku hormarno magaalada Boosaaso isimada dhaqanka Puntland oo maalmahanba u fadhiya xalka xiisada Boosaaso oo u dhaxaysa xukuumadda Dani iyo taliska ciidanka BSF oo hogaamiye Maxamuud Cusmaan Diyaana ayaa soo saaray 6 qodob oo arkaan in arrintaasi xal looga gaari karo oo soo noqnoqotay isimada ayaa go'aamin hay'adda BSF ay sideeda si ahaato hoggaankeedu loo daayay Maxamuud Cusmaan Diyaano agaasimiye hore oo Dani xilka uu ka qaado xiisadaas sababtay iyadoona agaasime Maxamuud la hordhigay inuu dib isugu raadiyo ciidanka ku kala jabay dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso sidoo kale waxay soo jeediyeen waxgaradka Puntland iyo isimada in madaxweyne Dani iyo sidoo kale agaasime Maxamuud Cusmaan Diyaano loo dhigo gogol dib u heshiineed si loo soo afjaro khilaafka ka dhaxeeyo qodobka saddexaad oo isimada waxay ku go'aamiyeen in dhibkii ka dhacay magaalada Boosaaso ee lagu dagaalamay ee loo bandhigo shareecada Islaamka laguna dhaqmo xukunkeeda dhanka kale isimada xukuumadda Puntland ay u soo jeediyeen in laga laabto heshiiskii ay la gashay shirkadda Imaaraadka ee DP World oo maamusha dekedda magaalada Boosaaso iyagoona sheegin 5 sano ee la soo dhaafay gacanta ku haysay shirkadaasi dekeddaasi aysan qaban wixii loo baahnaa hadalka ka soo baxay isimada maamulka Puntland ee ka kooban 6 qodob oo u arkaan in lagu xalli karo arrinta magaalada Boosaaso ee dagaalka sababtay durbadiiba waxaa xanaaq ba'an ka muujiyay xukuumadda Dani wasiirka maaliyadda Puntland ayaa ku tilmaamay hadalka oo duubabka dhaqanka ee Puntland mid baalmarsan sharciga Puntland isla markaana kii hore uga soo baxay uu sababay dagaalkii ka dhacay Boosaaso mar kalena kan uu sababi karo gacan ka hadal ciidamadii hore u dagaalamay dhexmaray madaxweyne Dani ayaa sanadkii hore khudbad u jeediyay dagaalkii Boosaaso kadib waxa xusay in xukuumaddiisa ay qaado doonto wax kasta oo ka soo baxo talaha isimada Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale sida aan xogta ku helay maanta ayuu ku jeeday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari balse waxa uu isaga baaqday kadib go'aanka ay ka soo baxay odayaasha iyo isimada Puntland ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sidoo kale waxa ku sugan madaxdii hore ee Puntland oo qayb ay ka yihiin Cabdiwali Maxamed Ali Gaas Cabdiraxmaan Faroole iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake mas'uuliyiintaas iyo duubabka dhaqanka ayaana maalmihii dambe u joogay magaalada Boosaaso sidii loo soo afjar lahaa xiisada ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyay agaasimihii BSF inkastoo muddo 15 cisho ka badan madaxdaasi halka ay ku sugan yihiin haddana maysa soo saarin go'aan ku aadan xiisada Boosaaso ee dhankooda ah hadalka ka soo baxay ee isimada Puntland ayaana mar kale cabsi xoogan laga qaba in Boosaaso ay dagaal gasho maadaama xukuumadda Puntland ay walaac xoogan ka muujisay xiisadii hore uga dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay agaasimaha BSF ee sababta dagaalka Boosaasana ee isimada Puntland soo jeediyeen Maxamuud Cusmaan oo uu hogaamiyo BSF taas oo dhabar jabin xoogan ku noqotay xukuumadda Dani maadaama agaasimuhu uu magacaabay waxba kama jiraan laga dhigay xaaladda magaalada Boosaaso ayaa sidoo ahayd maalmihii dambe maanta ka kacsan waxaana dhinacyada halka ku sugan ay sheegayaan in cabsi laga qabo in ciidamada ku wada sugan Boosaaso oo xiriyahoodii kala degan gacan ka hadal dagaal u dhexmari karo maadaama xukuumadda Puntland walaa xoogan ay ka muujisay hadalka isimada Puntland isla markaana la ogeyn sida uu dhaqan gali doonto inay aqbasho qodobada ay soo saareen isimada iyo duubabka dhaqanka Puntland dowladda Mareykanka ayaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada u qabatay 45 cisho oo doorashada hore ay sheegeen lagu soo gabagabeynayo taas haday dhici weydana sheegeen ay tilaabo adag ay ka qaadi doonaan dowladda Mareykanka ayaa ka digtay inay xayiraado la beegsan doonto siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaalida
haddii dib u dhac uu ku yimaado doorashada Soomaaliya oo lagu soo gabagabayn ka hor 25 bisha Febraayo soo socoto. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price oo shir jaraa'id qabta ayaa ugu horreyntii soo dhaweeyay go'aankii golaha wadatashiga qaranka ay ka gaareen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo la soo gabagabeynayo ka hor 25 Febraayo sida ay ku xuseen golaha wadatashiga qaranka. Waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inay hoggaansamaan jadwalka cusub ee la isku raacay isla markaana ay saxaan qalalaadkii ilaa hadda hareeya hanaanka doorashada ayuu yiri. Doorashada Soomaaliya waxay jadwalkeeda dib u dhaceen 1 sano 8 Febraayo waxay noqon doontaa sanad guuradii koobaad ee markii uu dhamaaday muddaxileedkii madaxweynaha. Dowladda Mareykanka waxay diyaar u tahay inay adeegsato aaladaha ay ku haki karto oo ay ku xayiri karto fiisada si looga jawaabo ama ficilo kale oo wax u dhibayo sharafta hanaanka doorashada Soomaaliya ayuu yiri Mareykanka. Mareykanka ayaa tiro dhowr jeer ku hanjabay inay beegsan doonaan qaswadayaasha Soomaaliya kuwa ay ugu yeereen hase yeeshee weli ficil ma qaadin. Si kastaba ila wareedyo diblomaasiyana ayayna ka soo xigno sheegin markaani ay ka go'an tahay Mareykanka inuu tilaabo qaadaan haddii doorashada la soo gabagabay waayo 25 Febraayo ka hore. Golaha wadatashiga qaranka ayaa shirkoodii Muqdisho ku heshiiyeen doorashada golaha shacabka lagu soo dhameystiro 25 cisho oo ka bilaabanaysa 15 Janaayo ee bishan aynu ku guda jirno 25 Febraayona la soo gabagabay doono. Go'aankan waxaa soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo oo marar badan lagu eedeeyay inuu yahay caqabada doorashada dalka isagoona madax dowlad goboleedyada ugu baaqay inay ku dhaqmaan heshiiskaasi. Farmaajo oo khudbadii ujeediyay habeen ka hor waxay wararka qaar sheegayaan inuu cadaadis uu kala kulmay dowladda Mareykanka si uu u taageero uguna muujiyo heshiiska cusub ee doorashada. Soomaaliya oo xilligan ku jirta kala goor marxalad adag oo siyaasadda ay kacsan tahay waxaa loo qabtay shirkii golaha wadatashiga qaranka in 45 cisho lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Lamana oga siday taasi u dhaqangali doonto iyadoona beesha caalamka hogaamiyaasha Soomaalida ay cadaadis xooggan ku saarayaan dhaqangelinta amarkaasi ayaga ku heshiiyeen. Dowladda Kenya ayaa shidaal qudus ka bilowday dhulbadeedkii loo xugmiyay Soomaaliya kadib go'aankii maxkamadda ee Hague. Dowladda Kenya ayaa kordhisay dhaqdhaqaaqyadeeda saliidda iyo gaaska muhiimka ah ee ka qayb ah dhulbadeedka loo xugminayo Soomaaliya kadib markii diiday go'aankii maxkamadda ay ka qodayso xuduudda Soomaaliya loo xugmiyay. Madaxa shirkadda Kenya Business ayaa sheegay inay bilaabeen bishii tagtay qodista gaaska iyo shidaalka ee dhulbadeedkii Soomaaliya loo xugmiyay. Tani waxay ka dambeysay kadib sahmin dhuleed oo muujisay in aagaasi ay ka buuxeen saliid iyo gaaska. Shirkaddan ayaana sheegtay inay rajeynayso inay natiijada dhowaan ay muddo 2 bil gudahooda ay ku gaaraan. Wargeyska Business Daily Africa ayaa ka warramay in Kenya si xawli ah sare ugu qaaday shidaalka sahminta dhulbadeedka wixii ka dambeeyay bishii Abriil inkastoo ay jiraan muran kala dhaxeeya Soomaaliya. Si gaar dhulka hadda laga wado shidaal sahminta waxaa ku yaala aag lagu murmay ee maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay u xukmisay Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sanadkii taga sheegay in Kenya aysan ka tagi doonin 1 inji oo ka mid ah dhulka lagu muransan yahay, taas oo muujisay inay sida Nairobi ay uga go'an tahay inay si sharci darro ah tilaabo fowdo ah ugu adeegsato shidaal qodidaasi. Kenya ayaa markii ay diiday maxkamadda ICJ waxay maxkamadda ku eedeysay inaysan dhexdhexaad ka ahayn kiiskaasi oo ay xaglinayso Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa weli ka hadlin tilaabooyinkan ay qaadayso Kenya mana cadda xitaa inay war ka hayso maadaama bilihii dhawaa ay ku mashquulsaneed dagaalo dhexdeeda ah oo siyaasadeed uu dalka la daaldhacayay. Sanadkii ugu dambeeyay Soomaaliya waxaa hareeyay xasarado siyaasadeed oo xitaa horseeday dagaal bishii Abriil ka dhacay Muqdisho kadib markii madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Farmaajo isku dayay inuu muddo kororsi samaysto. Soomaaliya hadda oo aan lahayn ciidan badeed oo xoog badan oo kaga hortagta xadgudubyada Kenya ay ka sameynayso, haddana waa lama taabtaan dhulka Soomaaliyeed oo dowladda waxa ka go'an difaacideeda iyo sidii cadawga shisheeye uga ilaalin lahayd. Taariibayaal ku xirnaa dalka Liibiya ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa saaka dalka dib ugu soo celisay dhalinyaro taariibayaal oo muddo ku xirnaa dalka Liibiya. Dhalinyaradan oo gaaraysa 97 qof ayaa waxaa ku jira 5 haween ah kuwaas oo muddo ku xanibnaa dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee federaalka ee Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse iyo mas'uuliyiin kale ayaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay dhalinyaradan Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe dadaal weyn ugu jirtay sidii ay dalka dib ugu soo celin lahaayeen taariibayaasha Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa jooga qaybo ka mid ah dalalka Afrika oo dhibaato xooggan ay ku haystaan.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku taga dalka Liibiya ayaana la kulma dhibaatooyin xooggan oo tiro dhowr jeer ay cabasho ka muujiyeen dhawaan ayayna Liibiya iyo Soomaaliya ka wada hadleen sida xaaladaha ee dhalinyarada Soomaaliyeed wax looga bedeli lahaa taas ayaana sahashay in dhalinyarada Soomaaliyeed dalka dib loogu soo celiyo maantay wasiirka arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiinta kale oo goobtaasi ka hadla ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay sida dhalinyaradii ay dalka dib ugu soo celin lahaayeen maadaama Soomaaliya haatan ay sameynayso horumar kala duwan oo loo baahan yahay sida dadka Soomaaliyeed uga faa'iideysan lahaayeen kheyraadka dalkooda sanadyadii dambe dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa awood ku bixinaysa sida dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalalka qaar oo tahriib ay ku tagaan dalka dib loogu soo celin lahaa inta ayaan ku soo gabagabanaynaa barnaamij wareedkeena maanta aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News si aad u hesho u joogtaydo wararka iyo warbixinada aan halkan ku soo baahinana page-keena rukumo oo like iyo follow da saaro warkan war la mid ah inta kulmi doona nabadgelyo